guddiga farsamada iyo dhismaha maamulka dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee dhawaan ay ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo muddooyinka ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta shir ku yeesheen caasimadda Galmudug waxa ay ku doorteen madaxdii hogaamin lahayd iyadoo gudoomiyaha guddiga loo doortay Cabdinaasir Geelle Cilmi halka gudoomiye ku-xigeenkan loo doortay Axmed Caafi madaxda la doortay ayaa guud ahaantood ka ballan qaaday goobta lagu doortay inay si cadaalad ah ugu hagayaan ummadda Galmudug doorashada la doonayo inay deegaanka ugu qabtaan waxaana kadib markii guddigu ay doorteen xubnaha hogaaminaya goobta ka hadlay Cabdulqaadir Nuur Caraale Cabdinaasir Geelle Cilmi iyo sidoo kale Axmed Caafi waxaa maanta sharaf u ah guddiga loo wakiishay dhismaha guddiga farsamada loo wakiishay dhismaha maamul goboleedka Galmudug oo halkan ku kulansan magaalada Dhuusamareeb maalmahan shir uga socday waxay maanta gaareen guul weyn oo ay ku doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen ayay doorteen taana waxay raacsiisan tahay nidaamkii ama dekreetadii ka soo baxday xukuumadda khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha waxaa noo yaalo hawl culus dhammaanteen tiim ahaan iyo shakhsi iyo qof ahaanba hawshaas culisna waxay tahay waa hawl aan hal qof qaban karin laba qofna qaban karin saddex qofna aysan qaban karin bulshada reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed waxay naga sugayaan inaan hawshaas naloo igmada ka soo dhalaalno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ceebteena ku asturo inaan ummaddaas wixii nagula dhiibay aan sidii ay ahayd uga soo dhalaalno inaan u cadaalad sameeyno inaan u soo saarno ugana shaqeyno wax dhammaantood ay dhihi karaan way nimatalaan way noo qalmaan waan ugu habboon yihiin intaas ayaan ilaahay ka baryaynaa waxaan u sheegaynaa ummadda reer Galmudug iyo shacabka Soomaaliyeed labadaba in maanta wixii ka dambeeya hawshii naloo idmaday ee ahayd farsamada maamul samaynta Galmudug aan halkaas ka sii wadi doono waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa guddiga farsamada maamul u dhisidda dawlad goboleedka Galmudug oo maanta si habsami leh u bilaabay isku duburidka arrimihiisa gudaha waxaan ugu mahad celinayaa in ay noo doorteen hoggaanka guddiga waxaana naga go'an annaga oo kaashanayna xubnaha guddiga oo dhan in aan dadka iyo deegaanka reer Galmudug u horseedno hanaan wanaagsan oo ay ku dhaxlaan dawladnimo iyo horumar guddiga farsamada iyo dhismaha maamulka dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee dhawaan ay soo magacawday dawladda ayaa kadib markii uu soo gaaray Dhuusamareeb wuxuu kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada taasi uga wada arrinsanayeen sidii hore loogu dhaqaaji lahaa howlaha guddiga loo igmaday Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb